nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam ثintaani laa turaddaani aw qalama turaddaan adducaaءu cinda الnidaa wa cinda اlba's xiina yalxamu bacduhum bacda. xadiidkanna wuxuu kaloo sheegayaa nebigu baryada inaan la celinin ama ay yarta inta la celiyaa marka aadaanku dhaco iyo marka jihaadka lagu jiro. waxaa kaloo ka mid ah waqtiyada ducadu ay fiican tahay salaada dabadeed. salaada dabadeed lababa culammadu way ku fasiraan. qole waxay yidhahdaan waa marka aada dhammaysato ataxiyaadka inta aanad salaamo naqsan. marka aad ataxiyaadka dhammaysato inta aanad salaamo naqsan. culamada barh kalena waxay qabaan waa marka salaada aad dhammaysato kadib haddaad ducaysato. yacni ducaa imaam la sugaa ma jirto oo aan dadku dareeraynin ilaa iyo imaamku uu duceeyo mooyaane, laakiin waa waqti aad iska ducaysan karto, waana waqtiyada ducadu fadliga badan tahay. nabigu calayhi الsalaatu wasalaam waxaa lagu yidhi ayu ducaa'i asmacu, ilaahay rasuulkiisiiyow, xadiiska tirmida warinaya waana xadiis xasan asuu sheekhu sheegaya albani, ayu ducaa'i asmacu, duco teebaa loogu maqal badan yahi, rabbi wuu ajiib badan yahi. wuxuu nabigu ku yihi jawfu leyl اlaakhir wa duburu الsalawaati اlmaktuubaat, habeenka barhtanka xaggiisa dambe, habeenka xaggiisa dambe iyo salaadaha maktuubaadka ah gadaashood buu nebigu yihi calayh الsalaatu wasalaam. walidalik buu nebigu waa kii saxaabiga u tilmaamayey mucaad ibnu jabal, wallahi mucaada waan ku jecelahay buu nebigu ku yidhi calayh الsalaatu wasalaam. ninkaa uu jeceliye uu u dhaartay inuu jecel yahay buu wuxuu ku yidhi ha ka tegin salaad walba dabadeeda inaad tidhaahdo allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika, inaad tidhaahdo salaadna dabadeeda ha ka tegin. acmaashu waxay ku kala fadli badan tahay ayuhalaxiba meesha lagu sameeyo, oo acmaasha maka lagu sameeya waa ka fadli badan tahay acmaasha meel kale lagu sameeyo. salaada xaramka lagu tukadaa waa 100,000 oo salaadood, yacni 56 sannadood waxaad tukanaysay, hal midoo aad maka ku tukata baa u fadli dhigantaa. hal midoo aad maka ku tukanto ayaa u fadli dhigantaa. idan maki waa ka fadli badantay, madiine waa ka fadli badantay, oo 1000 salaadood bay u dhigantaa salaadeedu masaajidkii nabiga calayh الsalaatu wasalaam haddaad ku tukato. masaajideennani waa ka fadli badan yihiin suuqyadeenna iyo guryaheenna, oo 27 darajo ama 25 bay ka badantay haddaad jamaca masaajidka kula tukato ta aad guriga ama suuqa ama dukaankaaga ama hudheelkaaga ku tukatid. waxaa ka fadli badan 27 jeer ama 25 jeer ta aad kula tukato masaajidka. bale intaad u soo socotaba khudwo kastoo aad soo dhaqaajiso, tallaabo kasta, wuxuu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam idaa tawadaأa faaxsana اlwuduء ثuma kharaja ilى اlmasjidi laa yakhrujuhu ila الصalaaة lam yakhطu khuطwaة ilaa ruficat lahu biha daraja waxuطa canhu biha khaطiئة faإida صalى lam tazil اlmalaa'ikaةu tuصلي عalayhi ma dama fi muصalaah allahuma صل عalayh allahuma arxamhu walaa yazaalu axadukum fi salaati man tadara salaa buu nebigu yihi. salaadaad gurigaaga masaajidka ku tukataa 25 bay dheertay taad guriga ama suuqa ku tukato. hadduu midkiin weysadiisa wanaajiyo oo masaajidka usoo kaco isagoo aan dan kala lahayn, tallaabo kasta uu soo qaado dan baa lagaga daadiyaa, darajana kor baa loogu yeelaa. markuu soo galo masaajidka hadduu tukado, malaa'igtaa u ducaysa, inta uu meesha uu ku tukaday uu fadhiyo, malaa'igtaa u ducaynayso leh allahuma salli calayh, ilaahayow kan u naxariiso, dembigiisa dhaaf, malaa'igtaa ugu ducaynaysa. qofkii nebigu yihi inta uu salaad sugayana salaadunbuu ku jiraa. haddaad casr markaad tukatay fadhiisato aad tidhahda maqrib baan sugayaa, intan aad fadhido salaad baad ku jirtaa. inta aad fadhido masaajidka aad iska fadhido waxaad la mid tahay nin tukanayo salaad ku jira baad la mid tahay. acmaasheenna waxay u kala fadli badan tahay siday u kala anfac badan tahay dadka, tacadiga ay u kala samayso. oo qofka dadka hanuunka ugu yeedha hadday hanuunkaa qaataan, dee qof wal oo hanuunkaa qaatay ajarkuu leeyahy ajar la mida buu leeyahy. maanta imaamu shaafici raxmat ullaahi calayh cilmiguu ka tegey uu ikhlaas ku daro, qof kastoo sidii uu salaada u sheegay intuu cilmigaa ka bartay ku tukaday
intii camal ahayd in leeg buu yeelanaya isna haddaad suuqa qabato qof u yeedho tidhaa warkaalay salaada tuko salaada bartid qofkaasi intuu salaad tukanayo tiisi isagu uu leeyahay adna in leeg baad la leedahay intuu salaad tukada in leeg baad leedahay idan acmaasha tacadiga acmaasha gudubta way ka fadli badan tahay acmaasha aan gudbin walidaalika bay culamadu waxay dhahaan faraa'idda marka laga yimaado maxaa u fadli badan sunanka alcilmu bay yidhaahdaan maxaa ku xiga aljihaadu maxaa ku xiga addikru bay yidhaahdaan culamada qaarkoodna khilaaf bay geliyaan way isweydaariyaan yacni waa acmaal tacadida kuwa kani saa daraaddeed baa laga horreysiiyey dikriga inay ka fadli badan yihiin kayfiyada loo sameeyaa kala fadli badnaysiin karta oo nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam ama qur-aankaba ilahay wuxuu leeyahy qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun salaada lagu khushuuca way ka fadli badan tahay salaada maxay aan lagu khushuucin salaada markaad ku jirto qalbigaagu soo jeeda waa adagtay inuu soo jeedo waa xaqiiqa laakiin musaawala waa mujaahada qofku hadduu sameeyo wuu soo jeedin karaa hadduu dadaalo والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا هدات جهاتنتو نفي الشيطان لجهاتنت نبي حلي عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى بلغ عشرها نبي حلي عليه الصلاة والسلام أدون كووت كذا مركزان صلاة اللوغو قرن نص موياني صدح ضلول موياني afar dalool mooyaane 5 meelood meel mooyaane 6 meelood meel ilaa uu nabigu gaarsiiyay 10 meelood meel mooyaane yani dadkan safka ku wada jira isku salaad maaha isku ajarna maaha fadiiladii jamaacada waa wada heleen fadiiladii salaadoodana waa heleen laakiin maca dalik salaadoodu waa kala badantay walidaalika nabigu wuxuu leeyahay midna salaadeeda nus buu leeyahay midna rubuc buu leeyahay mid khumus buu leeyahay mid sudus buu leeyahay mid thumun buu leeyahay mid tusuc buu leeyahay ninba in buu leeyahay kaashiya eg tahay kii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah waa qaacida caama mutaabacadu inay camalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ekaado qofba qofkuu nebiga camalkiisa uga dhow yahay ayaa camalkiisu ka fadli badan yihi إلا النبي محمد عيد قارس أما جرت عليه الصلاة والسلام أعماش إنه واحد وكلا فضل بدنتي سيدا وكلا إخلاص بدنتي إلهي درتي مياه مسوي حوجا كلا وقش يا كتيرة حلقة يا بين أدوح بحسه فقير كات كان حدا يا السيسي إلهي درتي مرة كقارنا وحلقة يا با إن ألقوا شيء أبو بحسه مرة كقار كادو حلقة يا بابا إن أدو بحسه ورياد عيبه من اسكسيوح إلهي درتي كاماها لكن سحبه وقنا ورياد عيبه من مصريدات كان حدودي سكتشيدي قعنتهم بعد سقفافسي نياداد وحكو بحسا انت إلاك تهيبا وحكو حران عملك آت سبين سئي نوع يهي ولذلك كلما عبادته أي كفك تهي مبطلات كدبان كشيء دونها وي كأقبل دودها ما وي ككريسة كلما عبادته نبي عليه الصلاة والسلام حينات المامي حتى نيادو هداي خالص نمتا هين لقو قاري كرا حتى عمل عرض سبينين نيادو هداي سريسو وهاد مخلص تهي حتى عمل عرض سبينين قاري كرتو سوغو نبي جهات تجي وصو صعده صار نغضي ووليبا وها جهاددي وقتك غزوة تبوك وقت كان 40 ندو كدع عن خليج كبال لبحيه كليله ونفط ضد كبحيسو أيها الرق صحابة كمدي وايين وحي فلان يا وحي نبي يجو يا هرين مركو نبي يقول وحنا دكوا قاضي دين ما هيو تبتنا مركو نبي يقول السعودية بوحدين بالمدينة الأقوامة ما قال دي مدينة رقبة شوقة أين ضحك طلابين الله ينقلت طلابي وإن عمل يعني ولا ينقبنا وين لقبتي waxay yiraahdeen ya rasuulallah wa hum bil madina ma yago madina jooga hadana iyago madina jooga buu nabigu leeyahay salaatu wasalaam habasahum al udhr buu nabigu yiri wa fi ba'd riwaayat habasahum al marad yani way samayn lahaayeen way awoodi waayeen
dee waa kuwii ilmeynayay markuu nebigu ka tegey camalkaa inay sameeyaan bay rabeen laakiin way awoodi waayeen idan biikhlaasihim bay waxay ku heleenba iyagoo fadhfadhiya kuwii soo jihaatamay camalkay heleen oo kale ay heleen iyagoo aan meel laba u bixin acmaashu waxay ku kala fadli badan tahay wakhtiga ay dhacdo mooyaane xaaladda ay ku dhacdo xaaladda maxaynu uga jeednaa